العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا channel كنا قاعد مفرن فضلا سبسكرايب صار لايك تراعي تمرين كنا فرصة معلومات عصوب لسعتيد كسر channel كنا سومالي كيمستري channel كنا كيري دونتان علوم تكيمي كذا علوم كمبيوتر قيبة كميدة علوم تساينس كلا إن شاء الله فضلا هدي channel كنا هراء أبتر سنين كسر بير هذا سونا دو مرحلة مرسد هذا waxaan soo bandhigi doonaa buuggeena chemistry ka hadlaya aasaaska chemistry insha Allah ka faa'iideyso waan buugga basic chemistry book waxa qoray aniga oo Maxamed Xirsi Faarax buuggan wuxuu ka hadlayaa aasaaska chemistry-ga oo introduction badan ka bixinaya si aad intaada chemistry-ga u gudagelin aad u sii fahamtid wuxuu chemistry-gu yahay daawacada buuggan waxa ka qayb qaatay oo soo saaray لولو بريس oo ku taala Mareykanka daawacadiisuna waxa dhameystirmay soo publish gareeyay October 2009 macluumaadka daawacada xagaas insha Allah ka dheehan kartaan buugan wuxuu ku base gareysan yahay syllabuska Puntland ku base gareysan yahay waliba wuxuu diiradda saaraya oo aad uga hadlaya sharaxaya maadooyinka ama casharada lagu dhigto form 1 insha Allah waxaan ka caawinayaa chemistry-ga ku dhigan doonto insha Allah Puntland buugan soo saaridiisa waxa ka qayb qaatay Dr. Maxamed Faarax Xuseen Master Shuaib Mubarak Master Maxamed Abdul Qadir Diriye Master Hamza Maxamed Master Sheikh Ismail Hassan Abdullahi iyo Master Muna Umar Abdullahi dadkaas qayb lixaad la ka qaatay soo saarida buugan iyo edit greentis iyo saxiidiisa buugan maxtuuyaadku ka kooban yahay chapterka koowaad kale waa introduction of chemistry to chemistry chapterka labaad waa periodic table iyo elements ku hadlaya chapterka saddexaad materials ku hadlaya materials iyo oreskooda kamid ah reactions iyo resting waxa soo dhan chapterka afraad asna waxa uga hadli doonaa more about physical and chemical change sida kinetic theory of matter ka hadlaya chapterka shanaad asna wuxuu ka hadlayaa acid and base ka hadlaya insha Allah chapterkiisa lixaad wuxuu ka hadlayaa air earth and water ka hadlaya si xaga uga jeeda insha Allah isla chapterkii waxa sii socda asna lixaad wixii fariin ah noogu soo celin doontaan ama aragti ah ciwaankaas hoose iyo numberkaas baan ugu soo celin doontaan insha Allah wixii macluumaad siyaada u baahantiin xagaas baad naga soo weydiin kartaan insha Allah haddii aad u baahan tahay buugan waxaad ka heli kartaa si bilaash ah kalena degi kartaa linkiga hoose ka hooseeya hoos ku yaala insha Allah kala degi doontaa insha Allah aad baa u mahadsantihiin intaas ku soo gabagabeynana wa mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Somali Chemistry Channel. Thanks for watching. If you liked the video, please hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button, and if you have something to say, please leave a comment.